تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا. بسم الله الرحمن الرحيم. daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkii horumar ummadaada oo aad ka dawanaysaan TV-ga caalamiga ah Universal TV. caawa barnaamijkan waxaan kusoo qaadanaynaa horumarinta xiriirka diasporada iyo daljooga. runtii taariikh ahaan waxaa la yiraahdaa dalka Shiinaha sababaha ugu waaweyn ay ku horumartay ayaa waxaa ka mid ah diasporadii Shiinaha ee u maqnaa dibadda iyo daljoogi dadka dalka joogay ayaa isbahaystay iyo bunuugti oo wadankaas ka jirtay. isbahaysigaas iyo dawladda taas ayaa sababtay in dalka Shiinaha dhaqaalihiisa kor u kaco, wax soo saarkoodina kor u kaco. sidoo kalena tusaalooyin saas oo kale ah Vietnam oo dagaal dheer ka soo kabsatay, ayagana sidaas oo kale ayaa dhacay oo diasporada dalkii ka maqnaa ayaa inta soo noqday ayay waxay wada shaqeyn dhexmaray daljoogi macnaa iyo bunuugtii iyo dawladdii wada shaqeyn dhexmartay awgeed dawladda Vietnam hadda sidii hore aad ay ugu fiican tahay, dhaqaalahoodiina kor ay u soo kacay. marka sidaas oo kalena haddii aan Soomaali nahay insha Allah taala waa dhacaysa, laakiin sida la rabay uma dhacdo. waxaa moodaa xogaa yar hurgif yar inay jirto diasporada iyo daljooga. macnaa diasporadii daljoogi waxay u arkaan diasporada inay wax alla wixii oo dhan oo ama shaqadii iyo fursooyinkii dhan ayaga ay ka qaadanayaan ama oo macnaa yani indho fiican laguma fiiriyo. diasporadana waxay u haystaan in daljoogi ay xasdayaan. marka taas ma aha. diaspora iyo daljoog waa iskaamilaan. haddii aad ogtihiin diasporada qayb weyn ayay ka qaateen horumarka wadanka. wadankii oo xaaladiisa oo dhibaato oo saan ku jirto ayay xawaalad faleeba ahaan ugu sureen. haddana alxamdulilah wadankii waa soo kabsaday. marka waxaa iga waana ah walaalaha diasporada ah, yani markii aad wadanka tagtaan, wadanka yani u taga inaad u danaysaan, ha u tegina hadaf ah inaad ka danaysataan. macnaa markii aad wadanka tagtaan la yimaada tawaaduc. macnaa dadka reer galbeedka ka taga ayaa waxaa lagu yaqaanaa runtii thiqa nafsiya, kalsooni. yani kalsoonidaas ay muujinayaan ayaa waxaa dhici karta in la moodo inay iskibrinayaan. marka waxaan leenahay dadka daljooga ah yani kibir ma aha, waa sidaas. yani reer galbeedka marka aad joogtid waa inaa xoogaa yara indha adeegtid oo xoogaa kalsooni iyo ay kaa muuqato, haddii kale waa lagu korsoconaya. marka taas awgeed marka diasporada ma aha dad oo isla waaweyn. macnaa sidoo kale khaladaadka ay diasporada galaan oo waxaa ka mid ah ganacsato badan oo diaspora oo maalgelin u tegay wadankii. yani markay wadanka tagayaan waxay ku tagayaan fikrad reer galbeed ayagoo haya. marka fikraddaas waxay u baahan tahay in la Soomaaliyeeyo. sida lagu Soomaaliyeyn lahaana macnaa fikraddii waxaa haya daljoogi. marka waxaa fiican inay la tashtaan oo aqoon isweydaarsi ay maraan oo yani dhalinyarada dalka joogay inay la tashtaan, ay dhahaan barnaamijkanaan wadaa, warniyo sidee aan u socodsiinaa. laakiin waxa waaye ninka diaspora ugu tagaya fikraddaana haystaa, sidaanaan u rabaa, sidaanaan u dhaqangelina oo leeyahay. marka waxaa dhici karta dad badan oo Soomaali diaspora oo ku khasaaray ganacsigooda ayaa jiro. marka waxaan leenahay diasporada maalgelinaya wadanka inaad la tashataan Soomaalida kale oo dalka joogay oo fikraddiina la Soomaaliyeeyo. haddii aad xasuusatiin afka Soomaaliga marka la qoraayo xuruufaha, awowayaasheena waxay soo qaateen alfabeetka laatiiniga ah. laatiiniga inta soo qaateen ayay waxay ku dareen xarfooyin cusub sida sha'da iyo yani ay ku dareen xarfooyin aan loo baahnayn, p iyo waxaasina waa ka bixiyeen. macnaha waxaa la yiraahdaa tagoog, yani muruq kala bax inta kalena tuur. marka fikradaha reer galbeedka waa in la Soomaaliyeeyaa. sida lagu Soomaaliyeyn lahaana waxay ku dhalinaysaa in aqoon isweydaarsi ay ka dhacdo dadka diasporada ah iyo dadka daljooga ah. marka waxaan leenahay daljoog iyo diaspora hadiririna, danta guud u adeega. macnaa malabkiina waxaa la helaa markii aad isqabsataan. shinida malabkeeda waxaa la helaa markay isqabsataan. markay isqabsadaan ayaa malabkeeda la helaa.
diaspora iyo daljoogna hadday isqabsadaan malabkoodii waa la helayaa. marka waxaan idin leenahay diaspora iyo daljoog haddii reerina ku dadaala yani danta guud hadduu ilaah yiraahdo. waxaan jeclahay inaan ka faaidaysateen. intaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa. jazaakum allahu khayran. daawasho wacan. tan iyo intaan mar kale ku kulmi doono. soomaalida ay habeen u tahay habeen wanaagsan, soomaalida ay maalin u tahay wadamada kale joogo maalin wanaagsan. jazaakum allahu khayran. مع السلامة. تهتف باسمك الدنيا بألوان من الشعر، يزغرد كل ما فيها وتزهو في ربى السحر، وزون العز ترسلها بكف الحب والطهر.